saddex aniga way iga adag yihiin saddexdaasoo kala ah nin aan ka xoolo badanahay nin aan ka xoog badanahay iyo nin aan ka xishood badanahay nin aan ka xoolo badanahay aniga wuu iga adag yahay sababtoo ah beer naxa ayaa igu yaala oo waan baahanahay ayaa iga adag nin aan ka xoog badanahay isna wuu iga adag yahay sababtoo ah indho isoo wadadaya ayaan ka naxaa oo xooggaada igu saacid ayaa iga adag nin aan ka xishood badanahayna wuu iga adag yahay sababtoo ah sumcad xumada waan ka naxaa oo xishoodka ha ka tegin ayaa iga adag adoo wax qabsan kara yaan wax laguu qaban dadkana ha ku qabsan waxay qabsadaan qaab ahaanna haddii aad awoodi karayso inaad dadka wax u qabatid ugu qabo qaab samaan leh oo aan laguu qabsanayn oo haddaadan dadka wax u qaban karin waxa lagaa qabsado oo ha gacan qaban kuwooda wax u qabanaya qof adoo u caqli celin kara ha u canaanan caqliyaradiisa oo adoo u cudurdaari kara ha u canaanan cilladihiisa dadkana iska cafi oo camalyu ku qaadin caqligu waa miisaan garashooyinka lagu cabbiro garashaduna waa garaamka hadba miisaankooda cabbirka la saaro qofka ugu ayaanka daran waa qof aan qiimayn waxyaabaha yaryar sida inaad neefsato hawo bilaasha oo ilaahay ku siiyey oo muhiimad weyn u leh noloshaada wax kasta oo aysan naftaadu ka maarmi karin ogow alle subxaanahu wa tacaala cid kale kugumuu dhiibin ee waad haysataa waadna helaysaa xilli kasta waqtiga iyo duruuftu way isbeddeli karaan xilli kasta ha dulmin hana waxyeelayn qof inta aad nooshahay laga yaabee inaad maanta ka awood badan tahay laakiin xusuuso waqtiga ayaa kaa awood badan cilmiga keensanaya inaad bariis heshaa wuxuu qiimihiisu yahay bariis hel cilmiga keensanaya inaad naar ka badbaaddo oo jannada aad heshaa wuxuu qiimihiisu yahay janno iyo naar qiimaha ay leeyihiin